wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale iyo weliba falanqeyn cusub oo ku saabsan ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska. Waxaan ku guda jirnaa usbuucii koowaad waxaana soo idlaaday ciyaarihii ay wada dheeleen dhammaan 20 naadi ee horyaalkani Ingiriiska ku tartamay. Haddaba CM Soomaali muxuu ka diiwaangeliyay horyaalka usbuuca koowaad ee dhamaaday? Falanqeyn ku saabsan ayaan halkan kula wadaagi doonaa. Waxaa laga yaabaa falanqeyntan inay kugu cusub tahay. Fadlan nala joog oo nala dhameyso muuqaalkan. Mahadsanid. Sidaan hore kugu sheegay waxaan ku guda jirnaa usbuucii koowaad ee la dheelo horyaalka dalka Ingiriiska kaas oo caalamka intiisa badan laga xiiseeyo. Haddaba yaa ugu horeeyay yaa ugu hooseeyay yaana barbara galay. Toddoba kooxood oo horyaalkani dalka Ingiriiska ka mid ah ayaa waxa ay usbuucani koowaad ku furfurteen kulamadoodii ugu horeeyay oo ay dheeleen goolo. Waxa ugu gool badan naadiga Newcastle United oo 4 gool ku hogaaminaya horyaalka. Toddoba kooxood ayaa horyaalkani wax gool aan ku furfurnin waxaana ugu hooseeyay naadiga Aston Villa taasoo lagu leeyahay 4 gool. 6 kooxood ayaa waxa ay galeen barbaro waxaana ka mid ah kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Marka laga soo tago barbarada ay galeen labadan naadi waxa ka mid ah sheekooyinka kale u gaarka usbuucan in dagaal adag uu ku dhexmaray suuq kale iibsiga kadib markii Chelsea ay ku guuleysatay saxiixa Moses Casado balse Liverpool ayaa waxay doonaysay inay ka dulqaado Chelsea Moses Casado balse Moses Casado ayaa waxa uu caawiyay Chelsea isagoo door biday inuu Chelsea ku biiro sidaas ayayna Chelsea ku soo gashay inay kula wareegto. Muxuu ka yiri tababaraha Liverpool kala iibsiga suuqa iyo weliba sida ay Chelsea ugu guuleysatay Moses Casado. Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu si qurux badan uga hadlay hardanka labada naadi ku dhexmaray suuqa kala iibsiga xilli labada kooxood ay ku dagaalamayaan saxiix cusub. Waxa uu yiri taasi waa wax uu doonayay tababare kasta oo Chelsea ah waa ay heleen. Erik ten Hagna waxa uu sheegay in Manchester United ay u baahan tahay inay xoojiso guulaha ay ka gaari doonto kooxaha dhigeeda ee horyaalkan Premier League ay kula tartami doonto kadib markii 1-0 ay kaga badiyeen naadiga Wolves. Tababaraha Manchester United ayaa sidoo kale waxa uu sheegay kalsoonida uu ku qabo khibradda kabtankii hore ee kooxda Harry Maguire. Waxa uu sheegay Harry inay tahay inuu difaacdo booskiisa hadiisa uu ku kalsooneen khibradiisa iyo kalsoonina uu ku qaban hab ciyaareedkiisa ay tahay inuu kooxdiisa ka tago. Waxaa jiri doona diiwaano badan oo aan qori doono xilli horyaalka uu dardar ku bilowday. Fadlan nala joog qaybta hoosena nagula wadaag diiwaanada kale aad ka qortay bilowga horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Mahadsanid.